maadaama aan ku soo noqday dalkayga hooyo waxaan u mahadcelinayaa dawladda Soomaaliya marka koowaad Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka labaad ra'iisul wasaaraha waddanka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre alxamdulillah waddankeena Soomaaliya aan ku faraxsanahay inaan maanta imid waxaan xirnaa 7 sano oo aan dalkayga hooyo ka maqnaa bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillahi rabbil caalamiin magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Cali Cabdille walaal aad iyo aad maanta u faraxsanahay maadaama dalkayga hooyo aan dib ugu soo noqday muddo dheer ka bacdi waxaan leeyahay dhammaan waa mahadsantihiin dadaalka badan iyo juhdiga badan oo aad nagu bixiseen ayo taasoo sababtay inaan dalkeennii dib u helno muddo badan ka bacdi aan ku dhibaatayno dalsheeye waxaan u mahadcelinayaa horta ilaahay waa mahadle dalkayga iyo dadkayga intaba waa u mahadcelinayaa madaxa u sarreeyay madaxa u hooseeyaba madaxweynahayga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isagoo ka shaqeeyay arrinteenna khayr baan u rajaynayaa dalkii oo nabad dareenkayga waa ku faraxsanaa aad iyo aad ayaa ugu faraxsanaa maadaama 7 sano dhulkayga ka maqnaa maanta ugu soo laabtay aad iyo aad ayaa ugu faraxsanaa waxaa lagu eedeeyaa burcad badeed wax la yiraahdo baa lagu eedeeyaa laakiin lumaysataa marka hore ma garataanoo badda ka kalluumaysanaya ayaa la qabtay markii la qabtay ka bacdina waxaa lagu xiray dalka Hindiya muddo 2 sano ayaa ku xirnay dawladdeena ayaa noo dooday markay noo dooday ka bacdi muddo dheer ayaga naga fadlaamsay marka dawladda waa maxsan tahay waa u mahadcelinaynaa dawlad jirta ilaahay ka dhigo ma gartay dalkeeda iyo dadkeeda wax u qabata Allah ka dhigo waxaan ka codsanayaa dawladda iyo dadka Soomaaliyeed kuwa kale ee walaalaheena ee ku dhibaataysan dalalka shisheeye sida annaka dadaalka dheeriga ay noogu sameeyso kaleeto in loogu sameeyo looguna soo celiyo dalka dib intaasaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliya Soomaaliya